wuxuu ku yidhi, ani adiga waxaynu nahay dad saaxiibo ah. qofkan dhintay waa hooyaday. bliis waxaan kaa codsanayaa hooyaday inaadan karfadda ka soo furan. ku soo dhowaada qisadii labadii tuug. waxay ahaayeen 2 tuug, waxayna karfanaha ka fura jireen dadka dhintay. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhintay qaaligii magaaladii. waxayna yaqiinsadeen qaaliga in lagu xiray 2 karfan oo qaali ah. habeenkiiba waxay u degdegeen qabrigiisa, ayagoo qorshahooda ama go'aankooda uu yahay maadaama qaaliga lagu karfanay 2 karfan inay ka soo furtaan oo iibsadaan. waxay tageen qabrigii oo ololaya, misne gubanaya, dab uu ka baxaya. way argagaxeen, wayna soo carareen. dib ayay magaalada u imaadeen. maalintii wixii ka dambeeyey habaarkoodii wuxuu noqday ilaahay qaaliha kaa dhiga. waxaa dhacday mid ka mid ayay hooyadiis dhimatay. waa uu baxay. wuxuu u tagay saaxiibkiis. wuxuu ku yidhi, ani adiga waxaynu nahay dad saaxiibo ah. qofkan dhintay waa hooyaday. bliis waxaan kaa codsanayaa hooyaday inaadan karfadda ka soo furan. waa uu qoslay saaxiibkiis. wuxuu ku yidhi, dhib ma leh, hooyada anigu karfanka ma furanayo. laakiin habeenkiiba wuxuu u qalab qaatay inuu hooyadii saaxiibkii uu karfanta ka soo furto. tuug faa'iido ma leh. waa uu baxay, karfantii ayuu ka soo furtay. kii kalena waa uu ogaa saaxiibkiis inuu yahay tuug muhallig ah oo wax aan cafinaynin. wuxuu aaday qabrigii hooyadiis, misna karfantiyaa laga furtay. waa soo cararay, magaaladii uu yimid. karfan ayuu qaaday, hooyadiis ayuu soo karfanay. daduu isugu yeeray. wuxuu yidhi, hooyaday karfanta waxaa ka furtay hebel. wuxuu yidhi, kii kalaa loo tagay. arrintii dacway tagtay, maxkamaday tagtay. wuxuu yidhi, anigu kama furan hooyadiis karfanta. wuxuu yidhi, hooyaday karfantaasaa ka furtay. kii kale wuxuu yidhi, aniga waa ka dhaaranaya. kiyaa soo booday. wuxuu yidhi, maadaama uu leeyahay ninkan waan dhaaranaya, ha yidhaahda ilaahay qaaliha iga dhigo haddii uusan hooyaday karfanta ka furan. kii kale uu soo booday. wuxuu dhahay, maya, ani qaali ku dhaaranayo. waxa kale waa ugu dhaaranaya, laakiin anigu qaali marna ma rabo. qaali kuma dhaaranayo. labadoodaba dee dhaarta iyo macnaheeda ma fahansana, laakiin waxay yaqiinsan yihiin ishooda waxay aragtay. qaaligii su'aaluu isweydiiyey. wuxuu is yidhi, waay nimankan, kana qaaliga u diidan yahay, kana qaaliga uu ugu dhaaranaya ninkan. doodiiu mar kale ballamiyey. qaaligii nimankii